saaxiibka kusoo dhawaada barnaamijkan oo aanu ku eegi doono Sweden oo uu ka soo baxay xisbi toos u weeraraya Soomaalida. Aan ku bilaabaynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee shalay toole madaxtooyada kula kulmay xildhibaanka Mareykanka ah ee Darin Lahoud halkaas ay labada hogaamiye uga arrinsadeen xoojinta iskaashiga ammaanka, ballaarinta ganacsiga iyo maalgelinta iyo qoto dheeraynta xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Mareykanka sida lagu yiri qoraalka. kulankan oo ka dhacay fila Soomaaliya sida aanu sheegnay waxay Lahoud u ahayd booqasho rasmi ah oo shaqo oo diiradda lagu saaray sidoo kale xoojinta iskaashiga istiraatiijiga ah ee labada dal khaasatan dhinacyada nabadda, ammaanka, la dagaalanka argagixisada, ganacsiga iyo maalgashiga. dhanka fila Soomaaliya madaxweynaha xilku ka dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna uga mahad celiyay dawladda federaalka Mareykanka iyo dadkeeda taageerada sii socota ee ay siiyaan Soomaaliya isagoo sidoo kale hoosta ka xariiqay sida ay maamulkiisa uga go'an tahay xoojinta iskaashiyada caalamiga ah iyo abuurista bay'o ammaan ah oo dhiirigelinaysa maalgashiga iyo dabcan horumarinta. yalkeeda xaaladahaasi iminka Soomaaliya kama jiraan, Mareykankuna haatan kalama shaqeeyo Soomaaliya. aan waliba waa hore ka goostay lacag deeq ah oo uu ku bixin jiray mashaariic kala gedisan oo ay ammaanku dabcan ku jireen. aan inta dheer in gudahoosadyada uu Lahoud gudoonka u yahay ay kaliya ka shaqeeyaan shaqada cayrta iyo arrimaha sirdoonka kuwaas oo aanay ku jirin wax maalgashi iyo horumarin toona ku saabsan. waxa qura ay arrintani muujinaysaana waa inuu Mareykanku hoos u dhigay maqaamka Soomaaliya maadaama dalka loo soo diray xildhibaan baarlamaani ah halkii la soo diri lahaa xubin ka tirsan waaxda fulinta sida wasiirka arrimaha dibadda, iskaashiga caalamiga ah, ganacsiga iyo wixii la mid ah. waxaa barnaamijkan gacan ka geystay maqaayadda Mendy Palace Restaurant oo lagugu soo kordhiyey adeegyo cusub sida in lagu karinayo cuntooyinka munaasabadaha, aroosyada, ducooyinka, sanad guurada, shirarka iyo dalabaadka khaaska ah oo heer sare ah. meesha ay ku taalo shaashada ka milicso. imikana Sweden waxaa sida dadka qaarkood khaasatan kuwa ku dhaqan Sweden ay ogsoon yihiin soo dhow doorashada guud ee dalka Sweden ee heer degmo, gobol ilaa heer qaran taasoo qabsoomi doonta 13 bisha September ee sanadkan. yalkeeda xisbiga lagu magacaabo Alternative for Sverige ama OFS ayaa weerar rasmi ah ku qaaday dadka Soomaalida ah isagoo waliba wada olole doorasho oo uu halku dhagiisu yahay Soomaaliya ur Sverige oo ah Soomaalida ka baxa Sweden. waxaanu xisbigan OFS ballan qaaday in dadka Soomaaliya ka yimi si rasmi ah loo tarxiili doono waliba si khasab ah iyadoo aan la eegaynin haddii uu haysto baasaboorka Swedishka ah iyo haddii kale. ay aadka u dhaliilsan yihiin waxa kamid ah siyaasadda isdhexgalka oo ay ku tilmaameen mid shaqayn kari weyday. aan Soomaalida ku dhaliileen inay yihiin mashaqaystayaal culays ku ah hanaanka cayrta Sweden iyo dhaqaalaha bulshada. xisbiga OFS waxay sidoo kale Soomaalida la xiriirinayaan dhibaatooyin ay kamid yihiin dambiyada, ammaan darrida iyo inay ka soocan yihiin bulshada Swedishka inteeda kale. halka waxayba soo dhagsadeen olole doorasho oo toos loogu weerarayo Soomaalida oo muuqaal ah wuxuuna ninkani jeedinayaa eedeh olole doorasho oo lagu soo qaatay sawir aan la garan karin laakiin u eg wiil Soomaali ah oo dhalinyaro ah lamana oga inay sheekadani xitaa jirto iyo in kale balse waxay u dhacaysaa sida tan. Gapa då, Svenejävel. waxay leeyihiin wuxuu wiilka dhalinyarada ahi degmada Borlänge ee dalka Sweden ku kufsaday wiil kale oo Swedish ah waliba si xun kaasoo lagu xukumay 7 sanadood oo xarig ah. waliba wuxuu aad ku darayaa inay u badan tahay in la sii daayo ka hor inta aanu muddo dhamaysanin qiyaastii 3 dalool ka tirsan 4 daloolka xabsigaasi isagoo eedeynaya xukuumadda haatan ka talisay Sweden oo lafteedu aan u roonayn soo galootiga iyo xitaa xisbiga cunsuriga ah ee SD oo ku dhaliilayo inay cunsuriyadii xoogaa qaboojiyeen. qofkaas ayaa mar kale bulshada lagu sii daynayaa waxa uu la jeedaa wiilka ay sheegeen xitaa maanta ayuu soo bixi karaa isaga oo qeel u heli kara inuu xabsigiisa guriga ku dhamaysto maadaama safafka xabsiyadu ay dhaadheer yihiin oo aan boos lahaynin. marka ay halkaa joogto xisbiga Alternative for Sverige waxaanu arrintan u maareynaynaa si gebi ahaanba taa ka gedisan. marka koowaadba ma aha inay Soomaalidu Sweden deganaato ama timaado taasi iyada iskeed u hadlaysa waayo Sweden uma soo qaadi kartid dad wata dhaqamo aynaan isku haboonaan karin isna qaadan karin. Soomaalida kuma arki karno Sweden. tan kale haddii uu qof Soomaali ah ama ajnabiga kale ihi uu galo dambiga noocan oo kale ah markiiba wala soo xiraya waxaan isla markiiba laga xayuubanayaa dhalashada Swedishka ah. waxaan hawsha habeen iyo maalinba qaban doonta hay'ad ay dhisi doonaan oo la yiraahdo Återvandringsverket ama xafiiska dad celinta oo aan hadda jirin. kadibna waxaa la geenayaa garoonka si Soomaaliya loogu duuliyo halkaas ayuuna ku qaadanayaa xabsiga 7 sanadood ah. wali wuxuu daba socdaa wiilkii waliba waxaan jeclaan lahaa in lagaga badiyo taasoo waliba ah xabsi Soomaali aan ahayn sida xabsi Swedishka hotelka oo kale ah. sidaas ayaan arrintan u xalinaynaa. tan kale ee muhiimka ah waxay tahay Soomaaliya ha ka baxdo Sweden. waliba waxaan raacinaya sida tan
waxaan idin xusuusinayaa in xisbiga SD dabcan waa xisbi kale oo isna cunsuri ah uu sida cad hakiyay siyaasadda noocan oo kale ah. Jim Okeson waa guddoonka xisbigaasi wuxuu xitaa sheegay inaanay dhalashada kala laaban doonin ajnabiga haysta baasaboorka weyn, waxaana ku jirtaa bayaankooda ama manifestadooda doorasho. wuxuuna soo qaadanayaa gobol muuqaal ah oo uu Okeson sheegayo inaanay baasaboorka ka ceshan doonin dadka ajnabiga ah. Men det här med tvångsutvisning av människor som bor här, vi har ingen sån politik. Vi har ingen. Si kastaba se kadib Donald Trump iyo taageerayaashiisa maran ee MAGA oo sidan oo kale u beegsada Soomaalida aadna u aflagaadeeya, kuwaas oo iminka u muuqda qaar loo bartilmaameedsanayo sidii Yuhuudi bari Yurub lagu ceyrceyrsan jiray. xisbigan OFS waa kii labaad ee muddo bil gudaheed ah Soomaalida toos ugu weerara siyaasad cad oo cunsuriyadaysan. marka la eego qaaradda Yurub waa kasii horreeyay siyaasiga lagu magacaabo Maximilian Krah oo ah siyaasi ka tirsan xisbiga isna magacan oo kala wata ee AfD oo loo soo gaabiyay Alternative for Deutschland ama Alternative for Germany, kaasoo markii la weydiiyey inuu Soomaalida necab yahay in kale xil uu waramayay wariyaha lagu magacaabo Mahdi Xasan oo aqoon isweydaarsi u qabtay dad kala duwan, uu la soo booday inaanu diidanayn 10,000 oo dhalinyaro ah oo ka timid Tehran dalka Iran oo Jarmalka u yimid inay wax bartaan, balse aanu soo dhaweyn doonin 10,000 oo Soomaali ah. ugu dambeyntii arrintani ma keeni doontaa in Soomaalidu ay isu timaado oo ay dalkeeda kunka qabiil u kala qoqoban qayrkiina ka haray wax ka qabato, mise qaarkood ayaaba moodi doona in kuwa kale laga jecel yahay oo bilaabi doona qorshe ay ku si kala cayrinayaan wixii burburka ka haray. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV. Saba